هني سؤال شو قدام بيسنقوي دنا وحيته جوركي كمال عبدل مهركي أفجوي كدعي دماشات كي تركي كدعي كل يسوع نقنا يا بادل هدي وحرقي عبد السلام كوحرنا أو عالم كرتجي هني ما كرتكتين عبد السلام مركز إسكور سنة سين نيكليرا كمال عبدل مس عبد السلام وكوخبو أياد جورستي كمال عبدل محاس عدين وهيسا جوابت السندونت أنا عبد السلام النقبي إيمانا ومدارين عبد السلام أنا حضر النقب لكن وهرب وقبي جري وسيدات عرور هرتا سيدات ما وذا جيران عيالك مركا مجرى سيدات لكن عيالك أنا عبد السلام أقول ويجوجا وانسدح له وهو يريركا عبد السلام هذا عيالك أقول ويجوجا وهذا تاجن وانسدح horta cabsaan ninkayga ma ahan laakiin waa aqaana cabsaan waxaan ku aqaanaa horta waa qofkii wadanka Sweden keenay horta taas sababteeda horta waa inaan cadeeyo waa qasab taas waxa sabab horta aniga dhib badan aan igu haayay sida aan sheegana ninkaan asaga wadankii geeyay ilmaha hore iga saxiixday oo xoog iga saxiixay ilmihii markaa u saxiixay oo waalidkii u sheegay horta waalidkii u sheegay oo wax walba u sheegay wax saas waa laga qabo waa intaanta marka hadii aan dawlad ku dacway oo dhaho ninkaas han sameeyna ilmiha gaalo gacanta u galay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياش مال والبو دينيدا iyo daafeeda kala joogtaan waxaan idin leeyahay waqtigii waayo idin wacnaada ku soo dhawaada adna channel iyo muuqaal cusub oo xiiso leh kana xiiso badan kuwii hore muuqaalkan kani waxa uu ku saabsan yahay waraysi burinayo waraysigii hore oo aan la yeeshay hani ayaan barnaamijkan idin kugu haya iyo waliba hani oo afkeeda ka qirayso in ay dhashay 3 caruur oo kamid ah caruurta Cabdisalaam u dhalay laakiin wax sideeda aysan jirin iyo sababta ku kaliftay hani in ay sheegto beenta oo ay soo bandhigtay wax la yaab leh oo dadkii maqla la anfariiri doonana ay ku sheegtay waraysigan ana idin la socodsiinayay kuna wadawanaysan u diyaar garooba iyadoo dhameystiran dhawanahan waxaan idin baahiyay waraysi aan ka qaaday hani oo maalmahan la isku haystay baraha bulshada hebel baa qaba iyo hebel wuu sixraday iyo hebel muusan sixradan kiiskii hani Cabdisalaam iyo Kamaal Cabdul habeenkii xalay ayuu soo gabagaboobay sida dadka Soomaaliyeed ay qabeen laakiin dadka Soomaaliyeed fikradaha ay qabeen waxa buriyay waxyaabaha ay la soo baxeen dadka uu kiiskan quseeyay waxaan kan diirada ku saarayaa hani waraysiga isburinayo kii hore ay siisay iyo kan ayaan diirada ku saarayaa barnaamijyo kale oo xiiso leh oo ku aadan aabihii meheriyay oo isaguna hadlay si gaar ah ayaan waraysi idin kaga hayaa isagana bal markaan hani waraysiga hore waxaan ku weydiiyay hani xaas horey ma noqotay oo horey nimo u guursatay caruurna ma leedahay iyadoo ii jawaabaysa hani kii hore waxay tiri sidan may wax caruurna ma leeyahay guurna ma soo maray kaas wuxuu ahaa jawaabtii ay bixisay waraysigii aan horey u la yeeshay hani waxay cadeysay inaanay nin waligeed guursanin caruurna aysan dhalin bal markan waraysigii kale oo iyadu ay ku cadeynayso inay guur soo martay Cabdisalaam uu qabay caruurta ay dhashayna uusan ahayn 8 laakiin Cabdisalaam ay 3 u dhashay iyadoo afkeeda ka cadeynayso wata aniga Cabdisalaam inaqani ilmana umadalin Cabdisalaam aniga hadda inaqab laakiin waa hore uu qabi jiray 8 caruur horta 8 ma wada jiraan ciyaalka marka مجرى سديد لكن عيالك أنا عبد السلام أقول ويجوجا وانسدح له وهو يريركا عبد السلام هذا عيالك أقول ويجوجا وهذا تاجن وانسدح وياي waxaan la socotay waraysiga hore inaan weydiiyay su'aal ah waraaniyay Cabdisalaam ma garanaysaa ma ninkaagii hore ayuu ahaa mise ma uusan ahayn waxay ku jawaabtay hani Cabdisalaam waan garanaya laakiin ninkeygii hore ma ahayn waxay raacisay inta horta cabsaan ninkayga ma ahan laakiin waa aqaana cabsaan waxaan ku aqaanaa horta waa qofkii wadanka Sweden keenay ciyaalkaas asaga uu dhalayna ana u keenay
لأنه وقتها قفك اللين كوال الإسلام صدا مركا مادام أساق إلما هيستي أنيقا أن لين أباهنا إلما أنيقا صوودي مركاس أنيقا ولي مركاس زائد ويار مركا إلمه إيا أنيقا سيديا أنينيد ودن كي سويدان وايه شاي waxay sheegtay Cabdisalaan inuu ahaa ninkii ka soo waday wadanka Kenya ee Sweden keenay ilmaha Cabdisalaan la jooganayeen kuwa ay iyada u soo kaxaysay oo ay kula heshiisay inay isdhaafsadaan wadisteeda iyo ilmaha maanta se waxay leedahay Cabdisalaan ninkeedii hore ayuu ahaa caruurtana aanu dhalayna waa 3 ma jiraan oo wali meeshaasi waxa ku jira inkiraad ah laba nool oo najma iyo qof kala ah iyo 3 hore ay u dhashay oo u geeriyooday sida Cabdisalaan uu sheegay hani way inkirtay markan laakiin hadii marba hadaladu sidaas ku badbadelayaan hani waxa u soo socda in wax walba hore u sheegtay afkeeda ay ku sheegtay in isla afkeeda ay ku buriso bal hani Cabdisalaan ma garanaysaa walaalay muxuu ku yahay caruur maad u dhashay mise waa ninkii aad hore igu sheegtay oo ahaa shakhsigii ka soo waday wadanka Kenya ee ku keenay Sweden inta miyay ku siman tahay mise waxba iska bedelay Cabdisalaan aniga hadda ima qaban laakiin waa hore uu qabi jiray abo 8 caruur horta 8 ma wada jiraan ciyaalka marka ma jiraan 8 laakiin ciyaalka ani Cabdisalaan oo dhalay way joogaan waa 3 cunug waa kuwa yar yarka ah hani shalay iyo maanta shalay ma garanayo ma qabin waxa uu iga soo kaxeeyay Kenya oo kaliya maantana wuxuu ahaa asxaabigayga 3 caruur baan u dhalay waayahay maadaama waraysigii hore haniyay oo aan kula yeeshtay aad dafirtay wax walbo hadda se aad cadaynayso in hani aad ahayd xaaskii Cabdisalaan bal waxaan ku weydiinayaa maxaa kugu kallifay walaalay in aad dafirto caruurtaada war xaajiga iska badaaba hani maxaa kugu kallifay inaad inkirto caruurtaada horta hooyo ilmaheeda inkiraysa inay jirto uma maleynaayo anigana Kamaal waa u sheegi lahaa hadii aan ilmaha dhalihi lahaa ama uu igu qaadan lahaa ama uu iga tagi lahaa qof dafiraya caruur uu dhalay ama hooyo dafiraysa caruur ay dhashay ma jirto hani si geesanimo leh ayay jawaabtaas u bixisay xilligii hore laakiin maanta ay waxay bixinaysaa jawaab oo uu ku dheehan yahay oo ay ku sheegayso wixii ku kallifay in ay inkirto caruurtii ay u dhashay Cabdisalaan waaba nin naaftiiso oo hore isu qabay ama hadda is qabo ilaahay baa nagoog anigu ma garanayo laakiin ilaahay baa nagooge hani haba dafirto Cabdisalaan maxaa ku kallifay inay ciyaalkeeda dafirto hani bal inta iiga joog walaalay horta taas sababteeda horta waa inaan caddeeyo waa qasab taas waxaa sabab horta aniga dhib badan la igu haayay sida aan sheegana ninkaan asaga wadankii geeyay ilmaha hore oo iga saxiixday oo xoog oo iga saxiixay ilmihii markaa u saxiixay oo waalidkay u sheegay horta waalidkay u sheegay oo wax walba u sheegay wax saas waa laga qabo waa fahamta marka haddii aan dawlad ku dacweeyo oo dhaho ninkaas hanaysaanoo sameynaa ilmiha gaalo gacanta u galaayo marka saas daraadeed warqadaha la sameeyay waxaa la sameeyay aniga psychology la ii diray maskax ahaan qof uu gumaysanayo haddana waa ka arki kartiin Soomaali maxamed oo dhow u jira social media waxa uu dhibkan u keenay haniyaysa meel gaari oo ku dhaartay wuxuu dhaa aniga hani ma rabo laakiin waxa tusaa inaan dhulka ku daro marka aniga iyo ilmahaasna wax badan aan kala maqanahay ani kaligay guriga deganay sida adigaba ii ogeed oo qof social media usoo galgali jira ahaa ilmahana asaga ilmaha in aan inkiro oo sheego waayo dhibkaas ay ku kallifay marka ilmaha awal ma diidi jiray laakiin markii dhibka iga badiyay waxay sheekada gaartay marka intaan maalin walba isku raaxaysanahay aniga meel gooni istaa oo ilmihii aan gaalo loo halligin ilmaha oo iga saxiixday ilmaha dadka magaalada nala degan oo dhan way ogin ilmaha asagaa haysta ani ma haysto ni ilma dhan ma haayo kaliya meel deganaa oo shaqo aadi jiray bas sidee bulshada bay igu arki jirtay hani su'aasha ugu dambaysan ku weydiinayo waxay tahay guurkii Kamaal Cabdul meherkii afgooye ka dhacay
damaashaadkii turkiga ka dhacay kulligiis wuxuu noqonayaa baadil haddii uu xerigii cabdisalaan kugu xirnaa oo aadan kala tagin. haniyey ma kala tagteen cabdisalaan markaad isguursanayseen ninka la yidhahda kamaal cabdul mise cabdisalaan uu ku qabo ayaad guursatay kamaal cabdul? maxaadse cadeen u haysaa jawaabta aad isiin doontid? horta cabdisalaan aniga ima qabo sida aan hore u sheegay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan cabdisalaan ima qabo. waxyaabahan hadda dadkaas iyo waxaasoo dhan aa sheegaysid aniga waa wada arkay. dhibka jira wuxuu yahay horta wixii run iyo been waa iskugu jiraan. cadaynta cabdisalaan aan ku kala tagnay horta warqadaha lagu kala baxaa waa og tahay meel walbo. horta asaga furo familkayga sidii daata cadaymaha hadda ayagaa qaarkood kuusoo dira ayagoo hadlaayo. marka waa og tahay diinteena waxay sheegaysaa qofka intaad lahaasid aad tirahdid qofkan waa furo saddexdeeda waa siiyey. marka cadaymo waa saas. cadaymihii kale wadankana way jiraan ayagana ayagoo warqada ah. daawadayaal intaas ayaan rabaa, laakiin waxaa jirta laba sheeko aad u qiimo badan oo aan rabo inaan idinkaga sheekeeyo oo labaduba ay yihiin ku cibri qaadasho qofkii maqlaana aan isu celin karin qosolka. waxaa jirtay sheeko habeen dhexdaas la ii sheekeeyo ahaa xayawaano wada sheekeysanayay ayaa mid ka mid ah xayawaanadii waxa uu sheegay sheeko qosol leh. markaasaa xayawaanadii meesha wada joogeen oo idil hal mar qosol la wada dhacay, laakiin dameer oo meeshii fadhiyey ma uusan qoslin. markii sheekadii ay dhammaatay xayawaanadii way kala tageen, dameerkii wuu baxay, qof walba xaafadiisuu aaday. 3 maalmood kadib ayaa waxaa isu yimaaday xayawaanadii. markii ay isu wada yimaadeen sheeko intaysan bilaabanin waxaa qoslay dameerkii. markaaba xayawaanadii kale intay yaabeen waxay yidhahdeen war dameerow sheekada ma aysan bilaabin qosolka maxaa kaa keenay? markaasuu yidhi 3 maalmood ka hor sheekadii aad ka sheekeynayseen oo idinku dhan aad ku wada qosheen ayaan hadda fahmay, sidaas ayaan u qoslay. maxaa ka fahantay? sheekada labaad oo aan rabo inaan idinkaga sheekeeyo wuxuu yahay waxaa ka sheekeeyey amiin caamir sidaan dareemayo xilligii maxamed cabdullaahi farmaajo oo la doorashooyinka uu socday ama ra-iisul wasaare muu aha ma garanayo, laakiin waxa ay sheekada sheeko cajiiba. sirdoonka Soomaaliya, sirdoonka Mareykanka iyo sirdoonka Ingiriiska, NISA, FBI-da Mareykanka ama CIA-da iyo weliba MI6 miyuu ahaa mise MI5 sirdoonka Ingiriiska ayaa hal meel la isugu wada keenay si ay u soo qabtaan bakayle ku dhex fakaday beer aada u weyn. sirdoonka Mareykanka, sirdoonka Soomaaliya iyo sirdoonka Ingiriiska oo 3 sirdoon ah, laakiin 2 ay yihiin kuwa adduunka ugu quwadda weyn. Soomaaliyana ay haatan soo kabcayso ilaahay ay gaarsiiyo heerarka dadka kale ay gaareen. ayaa inta meel la isugu keenay waxaa la yidhi ballolan baa idinka dhexeeya 3diine meeshaan waxaa ku faktay bakaylo dambiile ah. bakaylaha dambiilaha ayaa waxaa la rabaa in lasoo qabto. xilliga aad kusoo qabataanna waad ku tartamaysaane qofkii guusha qaado oo waqti yar sirdoonkiisa khibrad leh ee bakaylahaas dambiilaha kusoo qabto ayaa guushii raacday. waxaa lagu bilaabay ayaa layidhi ingiriiska malaha waxay ku qaadatay in uu soo qabto wax la eg, tusaale baan usoo qaadanayaa 5 minutes wax la eg ayay ku qaadatay inuu bakaylihii soo qabto. bakaylihii oo wado ayuu keenay. Mareykanka haddana lagu sii daayay. Mareykankii waxay ku qaadatay in ka yar intii Ingiriiska uu ku soo qabtay ayay ku qaadato 4 daqiiqo 3 daqiiqo wixii ka yar. macnaha Ingiriiska sirdoonka Mareykanka ayaa ka fiican. saas ayaa loola jeedaa xilliga. sirdoonka Soomaaliya NISA ayaa lagu sii daayay beerta. waxaa la yidhi bakaylaha dambiilaha soo qabo. markaasay 10 second waxay ku soo qabteen dameer aad u weyn ayay soo qabteen, waxayna u keeneen guddigii dhexdhexaadka ayaa la yidhi. markaasaa waxaa la weydiiyey war NISA Soomaaliyey, sirdoonka Soomaaliyey, annaga waxaan ku dirnay bakaylo dambiile ah, adiguna dameer baad ii soo qabatay. sirdoonku wuxuu yidhi war u kaadini ma waalan tahay anigu horta weydii ninkan yaa waay
ninkaan leedahay dameer waa ma dameera mise waa bakayla weydiin ninkii isagoo yaaban garta goynaya wuxuu yiri war maxaa tahay markaasuu yiri bakaylaha dambiilaha aniga waa bakaylaha dambiilaha aniga waaye ayuu yiri dameerkii maxaad ka fahantay dhamaystir bay leedahay laakiin halkaas ayaan koobaya keenaya muuqaalkan inta ayaan kusoo gabagabaynaya waxa uu ku saabsanaa ani shalay iyo maanta iyo waxa bari dhici doono wareysiyadii kala duwanaa oo hani iyo jawaabihii ay ka bixisay dibitaynu mid lacayn barnaamij noocan oo kale uu kulmi doono samee salaama wasalaamu allahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabadiyad adnay axsan marwo علي إنا تهي إفكا سموك وارديو حاجيغاغا وآخرنا إبهي جندي إذن كتي آمين آمين ألف مبروك آمين آمين ألف مبروك آمين آمين ألف مبروك آمين آمين ألف مبروك